galabta isugu kaya keenay isbitaalkan Bursalax referral Bursalax runtii maamulka degmada iyo maartay xildhibaanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada bahda caafimaadka iyo dhalinyarada ee dhamaantiin oo salaamaya assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh bacda salaan ilaahay isku kaya keenay ma mahad iskale galabtay oo ay tahay 6 bisha 2 ee 2025 waxaan isugu nimin xaaladaha waddanka ka jira runtii waxaan ognahay in waddankan iyo deegaanka Puntland oo aan joogno in dagaal ka socdaan dagaaladaas oo ah dagaalo maaragtay aad u qaraar oo lagula jiro kooxaha argagixisada ah runtii waxaan ognahay asbuucii ugu dambeeyay in maaragtay dagaalku uu sii xoogaysanayay oo xaaladuhu ay maaragtay ka soo darayeen loona baahan yahay gurmad dhinac kasta uu yahay nooc kasta uu yahay waxyaalaha hadda ugu daran ay tahay waxyaalaha emergency-ga ah oo maaragtay ay ka mid tahay oo markii emergency la yiraahdo waxa meesha soo galaya hadee waxa koow noqonaya priority qaadanaya waa caafimaadka oo waxaan ognahay in furaha koowaad ee nolosha uu yahay caafimaadka sida daraadeed waxay maantay aan isugu nimin isbitaalka Bursalax inaan diyaarino dhiig runtii maaragtay degmooyinka waanu ka bedelanaa waxaan haysanaa blood bank oo maaragtay dhiig intaan aan ku diyaarin karno waxaan nasiib u yeelanay in degmadii koowaad oo blood bank leh inaan nahay marka sida daraadeed waxaan bulshada reer Bursalax maaragtay qaybaheeda kala duwan aan maaragtay ugu baaqaynaa inay dhiigga shubaan oo isbitaalka yimaadaan oo dhiigooda ku deeqaan oo maaragtay ciidamadooda iyo dalkooda iyo dadkooda ay nafta u huraan runtii waxaan rajaynayaa reer Bursalax waa dad maaragtay aad u jecel horumarka iyo ka qayb qaadashada guud ahaan reer Mudug iyo maaragtay gaar ahaan reer Bursalaxna waxaan isla isbitaalkan laftirkiisa 2023 aan ka shubnay runtii asagoo annagu aan haysan blood bank dhiigii loogu deeqayay dagaalkii laascana ka socday annagu waqti yar haysanay runtii oo waqtigu uu aad noogu yaraa oo muddo 12 saac in dhiig lagu diray lagu sii dhiyo mar hadda kayd haysan ay tahay runtii 55 bag oo dhiiga aan maartay ku guuleysan inaan sii dhiibno muddo 12 saac waxaan rajaynayaa reer Bursalax markay kilibkan iyo daafurka iyo bilowga ay arkaan inay safaf dheer soo gali doonaan waxaan rabnaa dadka dhiigaga reerka ah dadku runtii uu isgaranaya uu yaqaan dhiigagiisa badana oo maartay marka dhiigaga aadka loogu baahan yahay siiba dhiigaga mayniska ah in maartay qofkii isku og inuu nala soo xiriiro waxaan diyaar u nahay meel kasta uu ka joogo Bursalax iyo aaga inaan ka soo qaadano aan gaari u dirno aan keeno isbitaalka aan ka shubno dhiig marka reer Bursalax dhamaantiis waxaan maartay ugu baaqaynaa in arrintaas ay maartay ka qayb qaataan ay u diyaar garoobaan xilli kasta isbitaalku uu furan yahay shaqaaluhu ay u joogaan ay maartay bahda caafimaadka isbitaalka ay la soo xiriiraan assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh